بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعن مالي وناكسن داوديال ومالنما سبتيها تاريخنا اي تايكو إلا باتنكا بيشا ماج سنة لبدا كن لحي إلا باتنكا وافق سنة لبدا بيشا شوال سنة كن أفر بقول أفرتني تضبع هجرية دا كسو دوادا برامج كورارك مانتا waan idinkugu soo gudbin doono wararkii iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dunida ka dhacay saacadihii aynu soo dhaafnay ilaa iyo daqiiqadan qodobadan maanta barnaamijka idinkugu haynana waxaa ka mid ah iyadoo dagaalka bariga dhexe uu galay maalintiisii 21aad ayaa mar kale ciidamada Iiraan waxay weeraro culus oo gantaalo ah ay ku qaadeen saldhigyada wadanaha Mareykanka ee bariga dhexe iyo goobo xasaasi ah oo ku yaala gudaha Israa'iil. warbaahinta Israa'iil ayaa xaqiijisay in weeraradii ugu dambeeyay oo Iiraan ay u adeegsatay sawaariikhda madaxyada qarxa oo culus ay ku rikaban yihiin ay qasaaro ballaaran ka geysteen bartamaha Israa'iil. ciidamada Iiraan oo sidoo kale xaqiijiyay inay gantaal la heleen diyaaradda F-16 ah oo Israa'iil ay leedahay. warka ila daadihinaya balayno ugu bilaabo wararkii ugu dambeeyay ee dunida gaar ahaan duqeymaha lagu qaaday Israa'iil. nimca iyadoo dagaalka bariga dhexe uu sii xoogeysanayo isla markaasna maanta ay tahay maalintiisii 21aad militariga Iiraan ayaa xoojiyay weerarada ay wadaan gaar ahaan sawaariikhda ay ku garaacayaan saldhigyada Mareykanka ee gobolka bariga dhexe iyo sidoo kale gudaha Israa'iil halkaasi oo lagu soo waramayo in saacadihii la soo dhaafay ku dhawaad 30 mar lagu qaaday weerar kala duwan. haddaba duqeymihii ugu dambeeyay waxa lagu soo waramayaa in ciidanka ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan ay shaaca ka qaadeen in ay fuliyeen weerar ah mawjadii 71aad ee howlgalka ballanqaadka dhabta ah dufcadiisa afraad ayna si toos ah u beegsadeen magaalooyinka Tel Aviv iyo Rishon LeZion. ciidanka IRGC ayaa sheegay in weeraradan loo adeegsaday sawaariikhda ciimaad gantaalaha culus ee Khadar oo iyaguna leh madaxyo badan iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn isla markaasna ay socon doonaan howlgalada ka dhanka sida bayaanka lagu yiri gudaha dhulalka la haysto ilaa iyo qatarta ka dhanka shicibka Iiraan gabi ahaanba meesha laga saarayo. sidoo kale waxay sheegeen in weerar lagu qaaday haamaha shidaalka iyo diyaaradaha shidaalka hawada ku siiya diyaaradaha dagaalka oo yiil garoonka diyaaradaha ee Ben Gurion. dhanka kale warbaahinta Israa'iil ayaa sheegtay in mid ka mid ah gantaalada Iiraan uu watay madaxyada qarxa oo nooca clusterka ah ama bambooyinka kala firdha. taliska gudaha Israa'iil ayaa soo saaray digniino kadib markii la ogaaday weerar lagu beegsaday bartamaha iyo koonfurta Israa'iil iyo deegaano ku yaala bartamaha daanta galbeed ee la haysto iyadoo siiriga digniintana laga maqlay Tel Aviv weyn. raadiyaha ciidanka Israa'iil ayaa soo xigtay duqa magaalada Rishon LeZion oo sheegay in burbur weyn uu ka dhacay meelo badan oo magaalada ah kadib weeraradaasi. warbaahinta Israa'iil ayaa sidoo kale ku warantay in goob la yiraahdo Maban oo ku taala bartamaha Israa'iil iyo Rishon LeZion uu si xun loo duqeeyay iyadoo madaxyada qarxa ee gantaaladuna ay ku qarxeen bartamaha Israa'iil isla markaana jajabkooda ay ku daateen agagaarka Tel Aviv weyn. waxaana sidoo kale la sheegay in qasaaro ballaaran uu ka dhacay Rishon LeZion qiiqna uu cirka isku shariray kadib burburka iyadoo kooxaha gurmadkana ay ka jawaabayaan warbixino sheegaya dhaawacyo badan oo ka dhashay gantaalo leh madaxyada qarxa ee kala firdha oo Iiraan ay ku soo weerartay Israa'iil. war kale oo arrimahan la xiriira taliska howlgalada military ee ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan ee loo yaqaan Khatim al-Anbiya ayaa sheegay in haddii la weeraro kaabayaashooda ay kaga jawaabi doonaan in iyaguna ay beegsadaan kaabayaasha kale ee muhiimka ah oo xitaa kasii muhiimsan kuwooda. afayeenka taliskaasi ayaa daboolka ka qaaday in sii socoshada dagaalka ay keeni doonto burbur cusub oo gaara sida uu yiri saldhigyada cadowga ee horay u burburay kuwaasi oo aan dib loo dhisi karin isagoo farta ku fiiqay in fulinta saxda ah ee hawlgaladooda ay muujisay awoodda iyo saamaynta Iiraan gaar ahaan
marka laga hor imaanayo cadowga. isla wararka Iran, wakaalada wararka ee Noor News ayaa soo xigatay ilo Iraani ah oo sheegay in la xiray 5 basaasiin ah oo la xiriiriyay Mossad iyo argagixisooyinka Sionistaha ah oo lagu qabtay gobolka waqooyiga ee Khorasan. Dhinaca kale, wakaalada wararka ee Tasnim ayaa sheegtay in subaxnimadii maanta weeraro ay fuliyeen Mareykanka iyo Israel lagu beegsaday 2 dekedood oo ku yaala Bushehr oo koonfurta Iran ah. Weerarada ayaana waxay sababeen dhaawac soo gaaray xarumaha dibadda iyo sidoo kale goobta doomaha lagu xirto oo burbur uu soo gaaray. Sidoo kalena waxaa la burburiyay tirooyin doonyo ah oo halkaasi ku sugnaa. isla wararka arrimahan la xiriira, warbaahinta Iran ayaa sheegtay in qaraxyo laga maqlay magaalada Yazd ee bartamaha dalka iyo magaalada Desful ee gobolka Khuzestan ee koonfurta galbeed. qaraxyo kale ayaa sidoo kale laga soo sheegay agagaarka magaalada Desful, halka qaraxyo kalena laga warinayo magaalada Tehran iyo deegaano kale oo ku yaal waddanka Iran. sidaasi si la mid ah militariga Israa'iil ayaa sheegay in mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka lagu weeraray gantaal dhulka laga soo riday xilli uu ku jiray howlgal uu ka waday hawada Iran. waxaana intaasi ay ku dareen in shaqaalihii diyaaradda ay raaceen habraacyadii la dejiyay, diyaaraduna aysan wax waxyeello ah la kulmin, howlgalkana la dhammaystiray. waa sida hadalka ay u dhigeen. dhinaca kale, waxaa goordhaweyd soo baxay ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga Iran ee magacooda loo yaqaano ama loo soo gaabiyo IRGC ayaa sheegay in nidaamyadooda difaaca hawada ay beegsadeen diyaarad dagaal oo Israa'iil ay leedahay ahaydna nuuca F-16 xilli ay soo gashay hawada Iran. war kale oo halistiisa wata oo Iran ku aadan hay'adda caalamiga ee tamarta atomikada ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA ayaa waxa ay sheegtay in Iran ay ku soo wargelisay in xarunta nuclearka ee Natanz la weeraray maanta, iyadoo aan la ogaan wax koror ah oo heerka shucaaca ah. hay'adda tamarta atomikada Iran ayaa sheegtay in xarunta Natanz mar kale subaxnimadii maanta ay weerareen Mareykanka iyo Israa'iil, isla markaasna weerarkaasi uu jebinayo heshiiska xakamaynta hubka nuclearka ee loo yaqaan NPT, balse uusan sababin wax shucaac ah oo ka soo baxay goobtaasi ama u baahan in la qaado tillaabooyin ka hortaga oo degdeg ah. waa tahay markan haddii aynu eegno weerarada kale ee Iran ay ku hayso dalalka gobolka dhaca, Imaaraadka Carabta, wasaaradda difaaca ee dalkaasi ayaa sheegtay in maanta ay ka hortageen ilaa 3 gantaal oo kuwa balaastiga ah iyo 8 drones ah oo lagu soo weeraray. waxaana intaasi ay ku dartay wasaaraddu in tan iyo bilowgii weerarada Iran ee gobolka ay la tacaaleen 341 gantaal oo nuuca balaastiga ah, 15 gantaal oo cruise ah iyo sidoo kale 1748 ka mid ah diyaaradaha droneska ah ee iskood iswada. dhanka colaadda ama isku horimaadada u dhexeeya Xisbullah iyo Israa'iil haddii aynu jaleecno, ururka reer Lebanon ee Xisbullah ayaa shaaciyay in ay fuliyeen weeraro isku horimaadyo toos ah oo ay la galeen ciidanka Israa'iil iyo weliba duqeymo ka dhan ah ilaa iyo 7 bartilmaameed oo ku yaala gudaha Israa'iil, isla markaasna ay sababeen khasaarooyin soo gaaray ciidanka Israa'iil. tani waxay ka dhigaysaa tirada guud ee weerarada ururka uu qaaday uuna la beegsaday bartamaha Israa'iil 484 tan iyo 2 bishan Maarch, halkii shalay oo kaliya ay ahayd maalintii weerarada ugu badan Xisbullah ay ku qaaday Israa'iil, waxaana ay fulisay 55 weerar sida ay tabisay wakaaladda wararka Anadolu ee laga leeyahay dalka Turkiga. warar kala duwan oo soo saaray ururka Xisbullah ayaa waxa ay ku sheegeen in dagaalamayaashoodu ay beegsadeen ciidamada Israa'iil kuwaasi oo isku dayay inay ka soo gudbaan aaga Tabasin iyagoo u jihaysan dhismaha maamulka ee magaalada Nakhura iyo sidoo kale koonfurta Lebanon. taliska difaaca gudaha ee waqooyiga Israa'iil iyo adeega ambulasta ayaa sheegay in dhismo ku yaal magaalada Safed ee waqooyiga Israa'iil uu ku dhacay gantaal laga soo riday dhanka Lebanon.
war kale oo la xiriira colaadan wasaaradda difaaca ee Britain ayaa sheegtay in diyaaradahooda iyo agabka kale ee military ay sii wadaan difaaca muwaadiniintooda bariga dhexe iyadoo ku tilmaamtay weerarada Iiraan iyo xiritaanka marinbiyoodka muhiimka u ah ganacsiga caalamka ee Hormuz kuwa qatar ku ah danaha Britain iyo xulaafadeeda. Dowladda Britain ayaa sidoo kale ogolaatay in Mareykanku uu adeegsado saldhigyadooda howlgal difaac oo gaar ah. xagga Mareykanka wargeyska Wall Street Journal ee ka soo baxa Mareykanka ayaa ka soo xigtay saraakiil Amerikaan ah oo sheegaya in Washington ay daad gureysay shaqaale kale oo dheeraad ah oo ka tirsan safaaradda ay ku leeyihiin magaalada Baghdad kadib weerar lagu qaaday goobahaasi. wararka dhanka diblomaasiyadda haddii aynu jaleecno madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa hambalyo u diray hogaamiyaha cusub ee Iiraan Mujtaba Khamenei taasi oo ku aadan munaasabadda Nowruz ee looga dabaaldego gudaha Iiraan sida ay sheegtay madaxtooyada Ruushka ee loo yaqaano Kremlinka waxaana la xaqiijiyay in Moscow ay weli tahay saaxiib daacad ah iyo lamaane lagu kalsoonaan karo oo garab taagan Tehran. hagaag aynu ku sii soconay wararka balahaatan haddii aynu eegno wararka soo dhacaya intaynu barnaamijka ku jirno magaalada Tehran ee caasimadda waddanka Iiraan ayaa lagu soo warramayaa in mid ka mid ah duqeymihii ugu xoogganaa lagu hayo halkaasi oo Israa'iil ay si adag u beegsanayso waxaana la sheegayaa goobaha la beegsaday in ay ka mid yihiin xarumaha ciidanka IRGC. dhinaca kale Israa'iil waxaa laga soo warinayaa gobolka Jaliilta Sare iyo gobolka Golan ama buuraha Golan ee laga haysto Syria Syriga digniinta ka bixiya gantaalada iyadoo la aaminsan yahay in halkaasi ay ka socdaan gantaalo iyo duqeymo Xisbullah ay wado. waa hagaag daawadayaal goordhow waxaan u gudbaynaa xubinta falanqaynta ee barnaamijkoona ku laba guri doono waxyaabaha ka cusub iyo halka uu marayo dagaalkan oo galay toddobaadkiisii afraad balse marka hore aynu ku hakano qadar xayeysiin ah. Imara Luxury Homes YouTube-ka, Twitter-ka iyo Telegram-ka idinka warar degdeg ah macluumaad iyo faallooyin ka heli kara oo ka akhrisan kara bartaano internetka ku leenahay ee www.hbnonlinetv.com ku xirno HBN oo ka dhigo wehelkaaga wararka. waa hagaag mulid iyo falanqaynta intaynu gudbin bal aynu eegno markan warbixin ku saabsan Trump oo isku diyaarinaya inuu la wareego jasiiradda Kharaj ee dalkaasi Iiraan. warbixin arrimahan ku saabsan waxayna haya wariyahayaga Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh. shabakada wararka ee Mareykanka laga leeyahay ee Politico ayaa daabacday warbixin ay ku sheegayso in jasiiradda yar ee Kharaj ee dalkaasi Iiraan oo hadda laga dhoofiyo 90% shidaalka dalkaasi ay noqotay bartilmaameed oo isha ku hayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. warbixintu waxay xustay in weeraro lagu qaado kaabayaasha shidaalka Iiraan ay go'aamin karaan jihada dagaalka iyo saameynta siyaasadeed ee gudaha Mareykanka. warbixinta Politico ayaa waxaa lagu sheegay in Trump uu bilaabay weeraro ka dhana jasiiradda Kharaj dabayaaqada toddobaadkii hore isaga oo ka digay in weeraro ballaaran ay dhici karaan si Iiraan loogu qasbo inay joojiso beegsiga maraakiibta shidaalka ee ka gudbaya marinka muhiimka ah ee Hormuz. Trump ayaa markaasi yiri waxaan carqaladeyn karnaa shidaalkooda jasiiradda Kharaj waxa kali ah ee aanan beegsanin waa xarumaha shidaalka sababtoo ah haddii aanu burburino dhoomaha xaaladdu waa ay sii adkaanaysaa waxa ay ku qaadan doontaa waqti dheer in ay dib u dhisaan. beegsiga amaba qabashada jasiiradani waxa ay wadataa khataro waaweyn oo saameyn kara madaxweynaha gaar ahaan haddii ay horseedo dagaal ballaaran oo Iiraan ay ku qaado kaabayaasha tamarta ee dalalka Khaliijka. kororka xiisadda bariga dhexe oo ay ku jiraan burburinta goobaha shidaalka dekadaha iyo kaydadka gaaska dabiiciga ah ayaa keeni karta sare u kac weyn oo ku yimaada qiimaha shidaalka isla markaasina dunida ku riixi karta hoos u dhac dhaqaale. Trump ayaa ka fikiraya xulashooyin muhiim ah oo u dhaxeeya la wareegida jasiiradda ama burburinta kaabayaasha shidaalka si loo joojiyo weerarada Iiraan ee maraakiibta marinka Hormuz maraya. qoboradu waxay ka digayaan in tallaabo noocaasi ah ay keeni karto ballaarinta dagaalka gobolka isla markaasina saameyn toos ah ku yeelan karta qiimaha shidaalka ee caalamka. qaar kamid ah ayaa sheegaya in Iiraan ay leedahay wadooyin kale oo ay ku dhoofiso shidaalka taasi oo ka dhigan in weerar lagu qaado Kharaj uusan gabi ahaanba wiiqi doonin dhaqaalaha dalkaasi Iiraan. Trump ayaa waxa uu sheegay in kororka qiimaha shidaalka gudaha uu yahay dhibaato ku meel gaar ah balse qalad kasta oo ku yimaada maareynta xaaladan uu sii dheereyn karo xiisadda isla markaasina saameyn ku yeelan karo doorashooyinka soo socda.
warbixintu waxa ay ku soo gabagabaysay shabakada Politico in go'aanka Washington ee ku saabsan jasiiradan uu noqon doono mid go'aamiya jihada dagaalka iyadoo oo saameyntiisu ay ka gudbi karto gobolka una gudbi karto dhaqaalaha caalamka iyo siyaasadda gudaha ee dalka Mareykanka. Maxamed Cabdiraxmaan, HBN. watahay aad buu mahadsan yahay maxamed oo warbixintaasi inoo soo koobay. Mawlid aynu ku sii soconay ee waxaa muuqanaysa in dagaalku uu balaaran doono isla markaana quwado kale ay ku soo biiri karaan. Haddaba maxaa faahfaahin ah oo arrimahan aad naga siin kartaa? نوعا أرنت مهم كواحد ويان إن سعدي قدام بي وحقاد صوت تريا صورة الجنة الدجال كأنه بلارن كرو طبعا وربحنت هذا محمد وآخرنا إن وإنه مقليني ولحرته ترام إنه سكودي علينا إنه اللور يجو جزيرة ده خراج طبعا وإنه كهذا الجزيرة ده مهمة أم أهمية ده أي لا هاي بقول كيف سجاشن شدالك إيران أي دوفيسو أي دونيا ترام إنه كهرته الجزيرة ده سيلقى دوفيو laba arrimood ayaan ugu wacan waa tan koowaad xagga dhaqaalaha in Iran culayska laga saaro way Iran dagaalka oo socda ay hadda dhoofisaa shidaal ilaa iyo 1 milyan oo fuusto ayaa la qiyaasaya maalintii inay ka dhoofiso jasiiradda Kharaaj arinta kale waxay tahay in uu doonayo inuu la wareegaba dekadaha muhiimka ah iyo xarumaha shidaalka ee waddanka Iran inkastoo arintaasi ay aad u adkaanayso oo halisteedana ay leedahay laakiin waa isku day Trump uu ka fakarayo in uu sameeyo arrinka ku aadan in ciidamo dhanka dhulka loo diro Iran waxa loola jeedaa ayaa la leeyahay halkan in la qabsado ama jasiiradda Kharaaj iyo sidoo kale dekadaha muhiimka ha noqoto dekada Badr Abbas oo kale oo xigta marinka Hormuusna u dhow inkastoo suurtagal ay tahay in ciidamo loo diro gudaha waddanka Iran gaar ahaan ciidamo kooban kuwa si ujeedku u yahay in ay isku dayaan in ay galaan xarumaha nuclearka si loo helo uraniumkii la tayeeyay inkastoo taa laftigeeda dhibaato weyn ay ka jirta ama ay adag tahay taa marka laga gudbo Mareykanku waxay aad u danaynayaan in la helo xulafo suurtagal waxa ah Britain inay ku soo biirto dagaalka hadda waxaynu maqlaynaa waaxda amuraha gaashaandhigga ama wasaaradda gaashaandhigga Britain oo cambaaraynaysa duqeynta lagu qaaday saldhigga militariga ee Diego Garcia halkaasi oo ah jasiirad iska leeyihiin Ingiriisku leeyihiin laakiin Mareykanku uu isticmaalo waxa dhici karta marka Britain inay qiil ka dhigato xarumaha iyaga ayaa la weeraray ama danaha iyaga ayaa la weeraray dagaalkan ku biirayna sidaas oo kale ay suurtagal noqoto wadamo kale inay ku soo biiraan iyagoo isla aan furno marinka Hormuus waayo Trump hadda waxa muuqata xeelad iyo farsamo kasta inuu ku guuleysan waayo furitaanka marinka Hormuus haddii marka taasi dhacdo maxaa dhici doona ayaa la isweydiinaya waxaa dhici doonta arrin halis ah ciidamadaasi halkaas la dhoobayo iyo maraakiibtaasi la doonayo inay furaan marinka Hormuus aad bay u sahlan tahay in la beegsado qasaaraha ayaa kordhi kara maraakiibta shidaalka maraakiibta gilbinaysa ciidamada Mareykanka haddii halkaas la geeyo waxaa dhici karta arrintu inay faraha ka baxdo waxaa laga soo qaadanayaa mid ka mid ah tusaalooyinka ugu daran ka soo qaad ciidan Mareykan in la geeyo jasiiradda Kharaaj 2500 ilaa 4000 haddii Iran ay duqayso saldhigaasi waxaa dhici karta boqolaal askari oo Amerikaan ah in la dilo taa maxay dhalin kartaa gudaha Mareykanka caraw weyn inay ka dhaliso hadda 60% dadka Amerikaanka dagaalka way ka soo horjeedaan waxa imaan karta xitaa madaxtinimada madaxweyne Trump inay inta ku soo ilaato isla markiiba Congress-ka iyo Senate-ka inkastoo taageerayaal badan uu ku leeyahay haddana laakiin in mooshin laga keeno ama waxa la yiraahdo soo gala joojin xitaa taa haddii dhici weydo doorashooyinka waqtiga dhexe oo November dhici doona in intii laga guuleysto isla markiiba in la sameeyo xilka xayuubin ayaa imaan karta qabaar marka weeyaan Trump xarash madax oo kor u tuurayo sumuni oo ay dhici karta in uu tuso mid ka duwan kii uu doortay oo ah inuu guuleysanayo wadamadan kale haday ku soo biiraan waa halis maraakiibtan shidaalka sida waynu ka hadalnay waa maraakiib aad u gurgurta saacadii waxay jiraan 5 kilomitir halkii diyaarad oo Iran ay leedahay gaar ahaan kuwa drone-iska ah shahiid oo kale 500 oo kilomitir ama ka badan ayay socotaa saacadii si fudud marka ayaa loo burburin karaa waxa imaan karta marinka hadda waxa isticmaala wadamada qaarkood maanta oo kale waxa ka gudbay maraakiib Turkigu leeyahay Pakistan maraakiib ay leedahay shidaal sida Shiinaha waa la ogolaa
turkiga hore waa loo ogolaa ruushka waa la ogolaa haddii meeshu ay xiranto gebi ahaanba fuustada shidaalka inay tagto $200 qasab waxaa ku ah maraykanka iyo israa'iil dagaalka inay joojiyaan iiraan marka waxa weeyaan meesha soomaalida ka tiraahdo neef gowracan geda kama waabto dhaawac kastoo soo gaaray laakiin weli waxay leedahay saamayn ay wax ku samayso